بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كاستاد جوجتان وإسنين صدح لباتنك بيشا جون سنة كالابدا كل باتن يشان كسر وادا برنامج كنا دعدين كوجودن بيه وأدكوه لسان ورر إيو فلان قيمبا إنت أنا كوجود جنا برنامج واحد مغلد دونتان حبي يوجودن بيه دعاي تانية ساكي حيث دا سرم رئيسي إسرائيل إيران والرضا دعاي إيو بقشة وزير كرمها دي بدا إيران وكوتشو روشكا هل كان حاوي هرقلي feejignaanta ka jirta salgiyada military ee ciidanka Mareykanka iyo kuwa galbeedka ee bariga dhexe waa maxay walaaca jira qodobadan iyo kuwa ugu darka ron ayaad maqli doontaan balse inta gudagal waxa ka codsanad ku soo birtay kanaalkan YouTube Imaan Jaamac oo maalin kasta ku siinaya wararkii ugu dambeeyay caalamka isla xilliga dhacayaan iyo falanqeyntooda mar kale soo dhawaada isniinta maanta gobolka bariga dhexe ayaa ku jira xaalad dagaal oo sare u kacday kadib iswadaarsiga gantaalo iyo duqeymo ay fuliyeen Iran iyo Israel waxa soo kala muuqda in dagaalka cirka ahi uu gudbay waji kale cusub iyadoo diyaaradaha rakaabka ee caalamiga ah laga joojiyay inay ku soo degaan garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv ee xarunta Israel halka Iran ay sare u qaaday feejignaanta military boqoshada wasiirka arrimaha dibadda Iran ee magaalada Moscow ayaa iyaduna si weyn loo micneeyay inay tahay isku day siyaasadeed oo looga jawaabayo culayska cirka ee sii kordhaya warbixintan ayaa ku siinaysa waxyaabihii ugu dambeeyay saaka ilaa xalay dhacay aan ku horeyna xalay ilaa iyo duurnimada maanta waxay Iran gantaalo noocyada saajil iyo sulfaqar ku garaacaysa dhowr bartilmaameed oo ku yaala gudaha Israel sida sheegtay wakaalada wararka Iran ee Fars wararkan ayaa qayb ka ah jawaab military oo casri ah oo lagu doonayo in lagu ciribtiro kaalmada uu Mareykanka siinayo Israel sida sheegtay wakaaladu gantaalada Iran ayaa gaaray gobolada Beersheba Ramat David iyo xataa agaarka safaaradda Mareykanka ee ku taala Tel Aviv warbixinada soo baxay ayaa sheegay in qaar ka mid ah gantaalada ay jabsadeen nidaamyada difaaca ee Israel halka qaar kalena ay si toos ah ugu dhaceen bartilmaameedooda waxa jira baqdin iyo walaac laga qabo in gantaalada qaarkood ay wateen madaxyo nooca EMBA oo curyaamiya korontada iyo isgaarsiinta Iran ayaa laga arkay weeraradii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa aad loo hormariyay taasi oo dhalinaysa qasaaro weyn iyo burbur laga arkay gudaha Israel tani waxay keentay in meelo badan ama dhismayaal badan oo ku yaala gudaha Tel Aviv ay dhulka galaan kuwaas oo burbur xoog leh u gaaray Israel dhinaceeda waxa ay duqeymo ka geysanaysaa gudaha Iran warbaahinta Kan News iyo telefishinka Israel ka soo baxay Janaayo 12 ayaa ku waramay in ciidamada cirka Israel weerar culus ku qaadan salgi istiraatiiji oo ku yaala Iran gaar ahaan Isfahan, Arak iyo Tabriz duqeymahan ayaa la fuliyay iyadoo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee noocooda F-35 iyo diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn warka qaar ayaa sheegay in goobaha la weeraray ay ka mid yihiin xarumo cilmi baaris nuclear iyo xarumo military oo ay maamulaan ciidanka ilaalada kacaanka Iran balse ilaa hadda ma jiro faahfaahin dhinaca Iran ka soo baxday oo weerarkan looga hadlay balse weeraradii ugu dambeeyay oo tani saakay dhacay ilaa duurnimada maanta waxay saameyn xoog leh ku yeesheen isku socodka Tel Aviv iyadoo kumanaan Israa'iiliyiin oo isku dayay inay ka dhoofaan Tel Aviv lagu khasbay inay guryahooda ku laabtaan amaba ay galaan goobihii godadka ahaa ee ay doonayeen inay ka baxsadaan tani waxay la xiriirtaa markii telefishinka Janaayo 12 ee Israel uu sheegay duurnimada maanta weerar gantaala oo Iran ay ku qaaday gudaha Tel Aviv ay dhaliyeen in duulimaadyo ku soo socday Tel Aviv dib loo celiyo sida laga soo xigtay maamulka garoonka diyaaradaha Israel in ka badan 35 diyaarado rakaab ayaa tan saaka laga leexiyay Tel Aviv kadib markii la hakiyay dhammaan duulimaadadii ku soo wajahnaa garoonka Ben Gurion ee ku yaala duleedka Tel Aviv diyaaradahan ayaa lagu khasbay in badda Mediterranean-ka ay dib ugu laabtaan isla markaana ay bedelaan jihadooda ay ku soo socdeen ee garoonka Ben Gurion tani waxay la xiriirtaa weerarada gantaalada ee jabsanaya nidaamyada difaaca Israel kuwaas oo si toos ah ugu dhacaya bartilmaameedyada ilaa hadda Iran weerar toos ah kuma aysan qaadin garoonkan balse hawada iyo dhismayaasha ku dhow garoonka ayaa la arkay inuu burbur xoog leh gaaray weerarka ugu dambeeyay ee duurnimada maanta Iran ay qaaday ayaa laga arkay inuu ahaa weerar loo adeegsaday gantaalo tiknoolajiyad casri ah lagu soo xiray kuwaas oo si dhameystiran uga gudbay nidaamyada difaaca isla markaana bartilmaameedyada galayay waxaa la arkay in Iran ay si toos ah u beegsatay goobaha tamarta iyadoo korontadana ay ka maqnayd qaybo badan oo kamid ah koonfurta dhulka Israel ay haysato Tel Aviv ayaa sidoo kale la arkay in wadooyin la jiray kadib markii gantaalada ay ku dhaceen sidoo kale dhismayaal dhowr oo ku dhaadheer ku yaala bartamaha Tel Aviv ayay gantaaladu maanta halakayeen wasaaradda gaadiidka Israel ayaa dhinaceeda saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay xaalad dhab oo dagaal in ay ku jiraan taasoo qasab ka dhigtay ay yiraahdeen in la ilaaliyo hawada si looga fogaado qasaaraha shacabka dhinaca kale Tel Aviv ayaa ku jirta xaalada ay dad badani isaga barakaceen tan iyo duurnimadii maanta tani waxay ka dhalanaysaa isku dayada kumanaan qof ay ku doonayeen inay uga baxaan Tel Aviv balse ma aysan shaqayn tani maanta iyadoo duulimaadyadiina dib loo celiyay
Iiraan waxay muuqataa hadda inay si toos ah u beegsanayso bartilmaameedyada isla markaana ay doonayso inay xanibaad dhammaystiran ku soo rogto Israel. Dadku waxay ku jiraan godad dhulka hoostooda halkaas oo ay ku dareemayaan inay ku jiraan cadaadis xoog leh. Waxayna isku dayeen kumanaan Israa'iiliyiin inay isaga baxaan Tel Aviv, laakiin taasi uma shaqayn maadaama dowladnimadii ugu badnaa xilligay ku soo wajahnayeen Ben Gurion oo garoonka ugu weyn ee dowladnimada Israel ay isla markiiba Iiraan gantaalo la beegsatay. Hadda Iiraan waxay u muuqataa inay hawada Israel si furan u garaacayso xilliga ay rabtay gantaaladeedu ay la gaarayso goobaha bartilmaameedka ah. Iyadoo weeraradu ay sii socdaan ayaa haddana cadaadis weyn waxaa ka jira gudaha Israel. Halka Iiraan laga arkay dadku inay dhulka ku soconayaan, Israa'iiliyiintu waxay ku jiraan dhulka hoostooda iyagoo ka cabsanaya isla markaana walwal ka qaba in weerarada ay goob kasta ugu yimaadaan. Hadda Israa'iiliyiintu si dhammaystiran ayay u lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen nidaamyadooda difaac. Tani waxa ay la xiriirtaa kadib markii la arkay in gantaalada Iiraan ay si toos ah uga soo gudbayaan nidaamyada difaac ee Israel. Israel ayaa dagaaladii soo bilowday 17 Oktoobar waxay ku lumisay dhammaan warshadaheeda difaac. Muddo dheer oo Israel ay isku arkaysay isla markaana dunida ugu soo bandhigaysay inay tahay quwad dhinaca tartanka wax soo saarka hubka ah. Hadda taasi ma ahan wax u shaqaynaya. Dhammaan nidaamyadii difaaca ee Israel ayaa howlgab laga dhigay. Qalabkii kale ee ku faanisay Israel oo ka mid ahaayeen taangiyadii markaafa iyo nidaamyadooda kale ee hub ayaa iyaguna ku dhammaaday marinka Gaza, halkaas oo kooxaha iska cabinta ay si rasmi ah dunida ugu soo bandhigeen inay yihiin nidaamyadan kuwaan shaqaynayn. Marxaladana waxay Israel ka dhigtay goob la difaaco oo aan ka maarmi karin inay gacan kala hesho. Magaalada Moscow wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa maalintii labaad ku sugan isagoo galinkii dambe ee shalay halkaasi gaaray. Wuxuuna la kulmay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov. Booqashadan waxaa lagu tilmaamay mid degdeg oo lagu doonayo in taageerada diblomaasiyadeed iyo mid military Iiraan ay ka hesho Ruushka, iyadoo lala wadaagayo xogta weerarada Israel iyo suurtagalnimada iskaashi difaac. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa lagu sheegay Moscow waxay diidan tahay in si ku meel gaar ah ama si joogto ah loo weeraro xarumaha nukleerka Iiraan. Waxaa laga cabsi qabaa bay yiraahdeen in gobolku uu leexdo dagaal weyn. Booqashadan ayaa sidoo kale ku soo biimaysay xilli la saadaalinayo shir gaar ah oo u dhexeeya Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha oo looga harinsanayo xasiloonida gobolka oo laga yaabo inay martigeliso magaalada Moscow. Ruushka iyo Shiinaha waxay u arkaan xulufo muhiim ah oo goob istiraatiiji ah ugu taala Iiraan, mana ay ka tagi karaan. Tijaabo adag ayay marayaan xilli Iiraan ay mar horeba isku muujisay inay tahay quwad dhab ah oo ka hor imaanaysa reer galbeedka iyo Israel. Iiraan adkaysi ayay u yeelanaysaa weerarada soconaya iyadoo la arkayo in muddo ku sii socota 2 toddobaad ee Israel ku guuldareysatay inay dhinaceeda dhulka dhigto Iiraan. Tani waxay keentay in gudaha xataa Israel laga maqlo hadallada ka soo horjeeda Netanyahu iyo nidaamka Israel. Iyadoo siyaasiyiin hore oo ay ku jiraan ra'iisul wasaare hore Israel ay saacad u sheegayaan in mal awaal ay tahay waxa uu doonaya Netanyahu ee ku saabsan inay burburinayaan Iiraan. Tani waxay la xiriirtaa in ilaa hadda Israel ay u baahan tahay taageerada reer galbeedka isla markaana ay burbureen dhammaan nidaamyada difaaca ay xataa ku jiraan kuwa reer galbeedka gaar ahaan Mareykanku ku taageeray. Dagaalkan wuxuu muuqdaa mid wajiyo kala yeelanaya iyadoo aysan jirin wax rajo laga qabo isbeddello ku imaanaya xasiloonida gobolka. Gobolka Bariga Dhexena feejignaan weyn ayaa ka jirta salgida reer galbeedka gaar ahaan salgida military ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku leeyihiin, iyadoo wargeyska Telegraph iyo telefishinka Al Jazeera labadaba ay ku waramayaan in si weyn feejignaan loo geliyay salgida Ingiriiska ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe xilli Mareykanku dhinaciisana uu feejignaan sare ku jiro. Tani waxaa dheer in Iiraan ay ka imaanayso suurtagalnimada weeraro ka dhici kara salgiyada Bariga Dhexe ay ku leeyihiin reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo isagu si toos ah weeraro uga geystay gudaha Iiraan. Digniino cabsi leh iyo feejignaan ayaa ka soo baxaya dalal kala duwan. Afhayeen u hadlayay aqalka cad waxa uu sheegay Mareykanku ma doonayo inuu dagaal ballaaran galo, laakiin diyaar ayaa u nahay inaan difaacno danaha iyaga iyo xulafadeena. Sidoo kale waaxda difaaca Mareykanka Pentagonka ayaa warsaxaafada rasmiga ka soo saartay kororka weerarada lagu bartilmaameedsanayo salgiyada Mareykanka iyo suurtagalnimada halkaasi ay weerar ka dhacaan, kuwaas oo lagu eedeynayo in kooxda Iiraan ay taageertay suurgal tahay inay weerar geystaan. Wargeyska New York Times ayaa si cad u sheegay in ilo military oo Mareykan uu ka soo xigtay suurtagalnimo sarreysa oo Mareykanku ku filanayo salgiyadiisa inay weerar ka dhacaan. Weerarada waxaa laga yaabaa bay yiraahdeen in ka yimaadaan kooxaha Iiraan ay taageerto ee Bariga Dhexe. Warsaxaafada rasmiga oo ka soo baxay golaha midowga Yurub waxaa lagu sheegay in Israel iyo Iiraan laga doonayo inay ka fogaadaan ficilo keeni kara dagaal ballaaran oo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxay iyaduna si adag u cambaareysay weeraradii ugu dambeeyay lagu qaaday xarumaha nukleerka iyo shacabka ee gudaha Iiraan, iyadoo wasaaraduna ay ku baaqday
dhinacyadu inay dib ugu noqdaan wadahadal nabadeed. Magaalada Tehran dhaqdhaqaaqyo waaweyn ayaa laga dareemayaa iyadoo la arkayay dadweynaha Tehran oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha raashinka iyo shidaalka. Tani ma cadda haddii ay muujinayso suurtagalnimada ay Iiraan iskugu diyaarinayso weeraro waaweyn xilli ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay si cad u sheegeen inay ka argoosan doonaan isla markaana ay ka jawaabi doonaan weeraradii xarumaha nukleerka uu Mareykanku ku geystay subaxnimadii shalay. Maxaa laga filanayaa saacadaha aynu soo aadan? Iiraan waxay shaacisay inay diyaarisay dhowr gantaal oo kuwa masaafada fogfog oo lagu bartilmaameysanayo sida ay sheegeen bartilmaameedyada cadowga. Ma cadda haddii diyaargarowgan laga arkay gudaha Iiraan uu yahay mid ka dhana ciidanka Mareykanka iyo wadanaha Mareykanka ee ku sugan gobolka Bariga Dhexe. Israel waxay qorsheynaysaa dhinaceeda inay howlgallada cirka ay sii balaariso iyadoo salgiyo kala duwan iyo goobo kala duwan oo Tehran iyo gudahan Iiraan saacadihii ugu dambeeyay weeraro ay ka geysteen diyaaradaha Israa'iil. Mareykanka wuxuu si ku meel gaar ah u hakiyay dowladnimada waaxdiisa difaaca Pentagon ee ku wajahnaa gobolka Bariga Dhexe. Ruushka iyo Shiinaha waxay qorsheynayaan kulamo degdeg ah oo golaha ammaanka si looga hortago dagaal dhameystiran xilli ay jiraan kulamo hoose oo isbahaysi ah oo Iiraan ay la yeelanayaan labadan quwadood. Gabagabadina Bariga Dhexe wuxuu u muuqdaa mid guda galay dagaal joogto noqon kara. Xaaladda hadda jirta ma ahan mid caadi ah. Bariga Dhexe wuxuu galay marxalad cusub ay suuragal tahay in dagaalku gaaro dalal badan oo ay ku jiraan kuwa hadda aan si toos ah uga qayb galin. Iiraan iyo Israa'iil labaduba waxay muujinayaan inaysan ka laaban doonin halka ay halka joogaan, halka Mareykanku weli ku jiro xaalad feejignaan sare. Diblomaasiyaddu waa mid xayiran, dagaalkuna waa sii holacaya. Dunida dhan ayaana indhaha ku haysa Bariga Dhexe. Halka oo mid ka mid ah isbedeladii ugu halista badnaa qarniga 21aad uu ka bilaaban karo. Barnaamijkan dhacdooyinka ugu dambeeyay waad ku heshaan warar iyo falanqeynba. Intaas ayuu noo weeyay haddii ay beenmeyntaan barnaamijka xiga iyo warbixino si joogto ah uga heli doontii kanaalka YouTube Imaan Jaamacan dib u kulmayno. Waxaan kaga tagay sidaas si amaanaan.